والله أنت شيخ آدم لكن وحنقول در لكلية والدك لفتي مسؤولية صارا صح نبينا عليه الصلاة والسلام وحول كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيتي والدك وحال روا المهوضة ماشي جنيان إنك ورقبان المهوضة إنك وحبريا يا ماشي آذيا إنك ورقبان سيقوا ورقبان والدك وحلو بهاي المهوضة إن يحلول كذو في عيه أو المهو والدك وحول با أو كسر دعوة وشجناي marka arintaas mas'uuliyadda ugu weyn waxa iskale waalidka ilmihiisa inuu ka warqabo way meesha wax ka baranayo cidda wax baraysa ciddaas waxay tahay dhaqankeedu wuxuu yahay inay ogaato way waalidku ma aha kaliya inay dadku qiimeeyaan shakli iyo muuqaal iyo qamis iyo galayko magacayga saad xagee joogtaa waxaan ka soo hadlayaa Bristol waa gartay assalaamu alaykum assalaamu warahmatullah الشيخ horta anaga dadka banaanka jooga wadankaana wadan gudihiisa ma joogno waqtiga laakiin muhiimadu waxay tahay wadaadada kale xagga jooga Soomaaliya ee ku mabda ah in kuwaas ay maxaa lahayo iyo shaqada ku wacyi galiyaan in ay waalidiinta horta ciyaalkooda ay la hadlaan in maxaa lahaa ay sheegeen nabadda wadanka iyo jay ayaga ay ka shaqeeyaan anaga mudaharaadkeena iyo dadaalkeena iyo qeeladeena waxa ma tareys waa dareemi karnaa baahidna way jirtaa wadanka inuu nabad noqdo u baahan anaga ma laakiin adinka kulli waxaan kuula tali lahaa adiga ahaan inaad ku joogo Soomaaliya gudaheeda aad wax u sheegtaan good ma sha Allah aad ma santa waxay la tahay inaan si kala u dhigno waa run inagu dibaddan joognaa laakiin haddana waxa la hubaa dadka dibadda jooga inay yihiin dadka ugu badan ee saameeya waxa gudaha ka socda markii dagaalka qabaa'ilku uu jiray dadka ugu badan ee si bood gareeya waxa gudaha ka socda waxa dadka dibadda jooga ama ha joogaan Ingiriiska ama ha joogaan Mareykanka iyo meelaha kale haddana waxaan hubnaa inaga dibadda joognaa inaan leenahay saameyn xoog badan inaan ku leenahay dadka gudaha jooga marka waxaan isleenahay macluumaadkan hadda aan ka hadlayna laftiisa dadka gudaha u gaaraya internetka si toos ay wala socdaan dadka gudaha jooga in badan waxa dhici karta qofku hadduu maanta hadla bariba in la dilo oo gurigiisa lagala baxo oo dad afduuban oo san ogeyn xataa meel ay yihiin inuu yimaadaan ba suuragal yani saadarteed inaga dibadda joogna cid bariba ku dilaysaan lahayn xorriyadda haysanaaho inuu qayb weyn ka qaadan arrintan inaan ka hadalno arrintan inaan muxuu ahaa inay waxa khaladka inaan saxno taas waa qayb weey arrinta mudaharaadku waa qayb kamid ah xulusha ma aha wax waajiba ma aha laakiin waa wax dareen oo dadku inay dareenkooda cabiraan inay waxan ka xun yihiin waxaanu islaamkoodii ahayn dadkaas markay Minnesota lagu sameeyay mudaharaadka aniga waan ka maqnaa gobolka maalinkaas laakiin ilaa 6 sheekh baa timid idaacadaha oo dhan baa qaaday muxuu warkii internetka dhan baa la galiyay dadka Soomaaliya jooga isla daqiiqadii laga hadlayay saacada kadib waxay muxuu ahaa way kala socdeen yani marka tan lafteedu waxa noqon kartaa qayb xoog badan oo dadka dibadda jooga arrintan door weyn bay ka qaadan karaan wax la Safiya xagee joogtaa Bristol waxaan weydiin lahaa dadka oo maaragtay Soomaaliya qasaya islaam bay isku sheegayaan ya islaam isku sheegi karaan iyagoo dad walaalahooda oo Soomaali ku wada hadlayo oo wada muslimna iyagoo dilaysay haddana iyaga islaam u sheeganaya horta marka ugu horeysaba okay caruurta halkan intay ku koray haddana noqonaya oo maaragtay dadka intay wax u sheegaan isqarxinaya dadkooda qarqarxinaya maaragtay waxaan dhihi lahaa horta dadka Yurub jooga dibadaha jooga waa dadkii wadanka ka soo baxay waa dadkii la rabay inay wax u qabtaan caruurtii la rabay intay wadanka ku noqdaan inay dadkooda wax u qabtaan weeyaan khaladka koow waxa iskale waa waalidiinta halkan jooga marka warida caruurtaada waxa weeyaan meeshii aad joogtay oo islaamkaaga culture iskooda mid aha ma joogtid meeshaad joogta caruurta waxa weeyaan dad kale waxay arkayaan wada diimo kale la waxyaalo kale ku wada dhex jira caruurta waa inaad la hadasho caruurtaada waa inaad maaragtay u fufnaad iskooladooda waa inaad ka warhaysid waa inaad sportigiisa waa inaad waxyaalo kale wada geysid ma ogtahay kuwa inaad u sheegto horta caruurtaada islaam baa tahaa laakiinse waxbarasho la-aan horta ifka meelaad ka maraysa maba jirtaba sida dadka afrikaanka oo kale hadda maaragtay islaana la shaqeey waxay igu dhahaysay adoo yar baad ilmo dhashay igu tiri 24 sano jira ilmo yar baan leeyahayna waxay tiri ninkaaga ugu horeysa ilmahaaga ugu horeeya waa inuu waxbarashadaada noqdo been maaha samaaha marka caruurteena in waxa loo sheego weeyaan maasha Allah aad baad mahadsantahay ya okay jazakallahu khair waxay la tahay muxuu ahaa waa qaybihii hore waxaad moodaa inay runta aad bay muhiim u tahay dadka iyagoo dhibkan sameynaya haddana islaam isku sheegaya waa waxyaabaha khaldan ee ka hadlayna inaan saxna in u baahanahay weeye
ووح واجب إنه صارن ويان تنلبان وحوي وارون مسؤولية والد كقيب وين بكيهين سو أخونا محمد بشاقي مركو حرب أهنهي والد كلفت وضو إنه أقاد المهيسة يوجينيا يوضب السعودة حق إنه آذو أقاد يعني وحكروا مهمة وحتى عربت كل إن ينضح بما فيه والبوحة لو شبه أيا laga shubtaa yani marka ilmahaaga cidda aad u geynaysaa waxay ku shubta ayuu bari noqonayaa marka waxaa muhiim ah in aad loo ogaado ilmaha cidda loo geynayo iyo waxa ay barayaan waalidku marka waa inuu lahaado wax la connection ama xiriir fiican isaga ilmihiisa waxaa muhiim ah kaleeto mararka qaarkood inagu markaynu nimid halkan waxaan rabnaa qaabkii tarbiyada inaan wax ka yar bedelo oo ilmahaagii aad sheekaysataan ilmahaadii adigu inaad saaxiib tihiin ilmahaaga markuu iskuul ka yimaado inaad taado hooyo ama aabo maanta maxaa lagu soo dhigay maxaad la kulantay dareenkaaga iga waran ilmahaaga marada inaad u ogolaato dareenkiisa inuu cabiro inuu ku sheego waxyaabo hadii xataa doona wax khalad ahaada yani dhageyso wuxuu ilmo weeyaan kadibna marka aad inaad saxdo isku day insha Allah taala marka waxyaabaha halka noqon kara weeyaan biidin Allah taala yani marka al-shabaab oo intee u socotay yaa diloosin yaa ku duuloosin yaa ka duuloosin waay waan ka safaa aan kartay waxa waay dadkii Soomaaliya kulli waxa la ka saaray kulli muslime ahaayeen marka waxa waay ina wadanka u noqon rabna أنا محاها عيشها في السعودية العربية 15 سنة كيف يعني نرجع في بلدنا ونعيش بس جزاك الله خير أختنا بارك الله فيك وحيلتها أرنتان وأرنتي ودن أن كشن قرنينا ويان وارون ودن كي واحد كسر مقانتها شنو تمسنا كوربا كوجودن بيسي واحد دوني ودن كايو نبض نقطة تكون نقطة حتى أنا واحد صوب حي دتك مقعدة شفت على الشباب واحد قادوا سعوتان حاجات كسعوتان ياد كدوليسان ياد دوليسان وحيابها أن كعبادة إن كهذا لينا وياه مركب حان ربنا أنيجا وريها صحافة قف كستوى حجرده إنه استاجته iyada oo waliba oranaysa la naxaafo fillahi law matalaa'im qof eedeeya amana dhibe eedis anoo ka cabsanayeen inaan xaqqa isgarab taagno oo dhahno arintan sax ma aha muslimiin baan wadanahay islaamku waa muxuu ahaa diinteeni weeye dantuna waa danteeni way naga wada dhaxaysa dalkuna waa dalkeeni weeyaan marka waxaan rabnaa diintii oo naga wada dhaxaysa dantii oo naga wada dhaxaysa dalkii oo naga wada dhaxeeya inaynu maslaxadiisa ka wada tashano ayaynu u baahanahay insha Allah taala waxaan rabnaa inaan shabaab وعقل علينا ونسكت قبلنا إن شاء الله تعالى. الشباب وحوي مكسا وحد ديدا يعني أم إيربان أم إيربين مكسين بأنوكا وحوي وحد كلين أنوكا مسلمة هيا قال قف قال أول الدلوي مجوج ماشي. وأردها. وحوي دكي سومالي ذي خلخلويان مركب محان سمعنا ولا دباتا جرتا والله أنو قفلنا قبل صاحبتي هذا من كذا ماشي جراب ميرستي. الله يس. هذه كرت واقع بسوي سام محان سمعها مركب دكي واكل فرين قبلي وحمين ويان. ناقيه وحلين إن ممكن ما بيس قباب وإنه كهديسكم مهريان والله دباتا بعضي. وارون دباتا دم بعضي يجوا حنا هنا إليها صاحنونية لكن هذين أسكت قوانين تدخل السجود تجنين وكهر تجا نبكى سوسيس عنيا مركو حرمنا السجود التجنا سيل لو هرتجا لا نبكى سجاء. راج قال صعوتها مركا ما سؤال بعد جعلان لهاي مثلا جعلان لهاي. وسلامتهم كل جيم بابا هذا محن كنا رأسه يا شيخ إذا ما شاف لي شرف طلع. ولا لو معانا وحوية دباتا ودن كيني كتاجن ودن كين لبعطين سنو بربرسنا هذا مركي الدولة عاصمات قبطة في عن أو مسلمين ودلتينا إن كان قبيو إن كان صاك عيادتك اللينا يا ولا عرورتي وحوية ويسفدينا يعني عرورتي مسكحة لقى حدا يا لقى بويسن قرينا يا ويبونسن قرينا عرورتي بويسن بيكوسنا يوحي قادن ومركا قال يا بها سود لي هيرتي سود لي كان سود الأجنة قشيدي marka walaal waxa weeyaan masiibo adduunka loo soo diray dadkan afka duubana calanka madowsita waa masiibo adduunka loo soo diray ilaahay ha naga qabtee amiin waxa weeyaan walaal inamadii diiday ee yiri soo qarxin mayno nimanka madaxda dawladda soo dilimayna waa kuwii lagu gacanta jaray iyagoo waxba geysanin ay sidii kuwa dhintay inamadii yar ay yiri waxbay xadintay beenta sheegay xabaali bay walaal saqayaan dadkiiba dumarkii waxay yiraahdeen keeshali ha xidhanina ribajeeto oo maxaan ku dhaday ragayda eegaya xidhanina waxaan adduunka ay ka sameynayaan ilaahay hay naga qabto ummadda Soomaaliyeed hay soo raacdo hal habaaro in kaan hal lagu rido hal isugu tago al-shabaab ma waa shayaadiinka aday oo boysina oo samaysan oo yuhuud way ka xiyeen hal isugu tago hal dilo walaal oo ilaahay bilaa ku sameeyo jeclaan lahaa shabaabku waa Soomaaliyeed in wax in khaladaadkooda ka hadalno bas waxa sameeyna markii aad baad maasan tahay ilaahay inuu soo xanuuniyaan ilaahay u baryeynaa waa yuhuud walaal yuhuud بس أدبا ما سنتها إلى مركز رأسها هنوني إيجا لكن أنت الدعاء وحن كل دريناها دنا
inaan ficil samayno oo insha allahu tacaala inagoo dhan intaan iskaalmaysano iyaga laftooda aan saxno u caqli celino waanino waxaan inuu khalad yahayn aan sheegno janno lagu galaynin isqarxinta iyo dilka qofka muslimka janno laguma galayo walaal dadku waa wada muslimiin dadka ay laynayaan ay carruurta ku dirayaan ay leeyihiin laaya waa muslim dawlad muslimaynu dad muslimaynu wax gaali inaguma jiro waa shayaadiin adduunka loo soo diray oo afduuban oo argagixisa oo waxay yihiin la aqoon oo indhahooda la arkaynin